yidhi qodobka labaad xalay waxaan miidiyaha qaarkood ku arkayay xuseen axmed caydiid wasiirkii hore cadaaladda oo ka hadlaya dhacdo ka dhacday Hargeysa. waxaan leeyahay qofka bini'aadmigu markuu hadlayo backgroundkiisa iyo taariikhdiisa inuu eega ayaa muhiima. golaha kacaanka sare uu ka hadlayay kolley anigu ma soo gaadhin, isagaa la soo shaqeeyay oo askari ka ahaa. taa isagaa wuxuu ka odhan doona, laakiinse anu waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhacdada uu ka hadlaya halkan. uu waddo leeyahay waxaa loo samaynayaa mahwada qaranka. waxaan kuu sheegayaa xuseen axmed caydiid oo waddadaa debdemiskaa loo samaynaya 4 waddo oo ka baxaya debdemiska intaba waanu samayno waanu bannaynay. 4taa waddo mid waa ta galbeed uga kacda, mid waa ta koonfur uga kacda ee beertii ilmo cumar xaashi qaybta dhan aanu ka baabinay ee ka tallowda halkaas ee axmed dhagax ka gasha eenu ilaa bridge-ka u samaynay cawaalo jaroon. midina waxa weeyaan taa u baxda bariga ee maanta la banaynayay, ta kalena waa ta waqooyi u baxday hay-adda shaqaalaha ku dhacda, taasoo culimmadu noo fidyoodeen inaanu xabaalihii ka saarno halkaa ku jiray oon meel kale ku soo aasno iyadoo waddadaa loo bannaynayo. taasi waxa weeye muhiimadda uu debdemisku leeyahay ummadeenna. aqalka aad doonaysa inaad xagxagato, taariikhdu iyadaas qortee shalay waxay ahayd inagoo madaxweynaha u tagnay habeennimo kii aad lahayd maruu aqalkaa cali jirtee waxaa soo eegi jiray halka dhismaha oo maagdhisayo ayaa jaar la ahaa ee muxuu ahaa berigii aan yaraa isagoo xuseen sheegaya waxay jaar ahaayeen buuri oo aqalka ay aamine ibraahim ku jirtay ee iminka halka oo maagdhistay ee baarkiisa ka soo jeeda aqalkaasaa jaar ahaydeen. aqaladii ugu qurux badnaa ee ugu haybad badnaa buu ahaa. halka uu leeyahay business ma samaysan karaan qoyskiyo distoorka, anu waxaan qabaa halkaa wuxuu xuseen axmed caydiid ka soo horjeedsaday kitaabka qur-aanka. mahwadu waxay dhaxashay aqalkaa isagoo dhisan oo hudheela oo cali jirta la ydhaa. de ma waxaad leedahay maba dhaxli karta wax shareecadda u bannaysay, kaasina inaad ku marmarsootiyo waxaad ka hadasha may ahayn. adugu waxaad ahayd xuseenow ninkii aqalkii dowladda ee uu ku jiray iibiyey. ninkaad ka iibisay nin fog maha waa cabdiqaadir jirte. maanta kii ka hadli lahaa aqal baa la dhistay iyo waxbaa la boobay iyo wax odhan lahaa adigu ma tihid. waxaad ka hadashay guduuda carwo dee nolosheeda waxba kama ogid. waxalaaliya waxaad ka ogtay duruuftay ku siman tahay ma jirto. annagu dowlad hoos ahaan wixii aanu qaban karno bayga iyagu haba yaraadee waxaanu bixinaaye bil kasta waxbaanu siinaa. markaan u soo noqdo dhismaha la dumiyey wada deerar tambareeri ahaa may ahayn sharci, qof kastaaba aqalkiisii uu leeyahay sharciga ahaa. haddii uu yimaado wax khalada oo ku tacadiya waxaa laga sheegayaa tallaagada iyo nin waxa weeye annagu dhismahaanu duminaa waxaa hoos yaalan inaan u daryeeloon u qaadno qofkaa muhiima. hadday halkaa wax burbur ka yimaadeen mar kastaba baadhis baan u dirnaa. shaqaalaha iyaga ciddii khaladka gashayna waanu samaynaa. taana baadhisteedii ka hor dhici maayo haddii qof bini'aadama wax lagaga gafay. laakiinse waddo loo bannaynaya debdemiska iyo halkii dadka laga badbaadin lahaa maad ahayn ninkii intuu u soo fadhiisto tv-ga odhan lahaa waxaa loo bannaynayaa mahwadii qarankaa loo bannaynayaa waxaa ka hadli lahaa. waxaan leeyahay qofka bini'aadmigii inuu isku xishoodo